sheekada Romeo iyo Juliet waxaa qoray qoraaga caanka ah ee William Shakespeare. Sheekadan waxay ka dhacaysaa Verona, Italy, halkaasoo laba cidood ay isku dagaalayaan. Labada cid waxaa la kala lahaa Montagues iyo Capulets. weligoodana is necbanaayeen waqti dheer. Bilowga sheekada amiirka Verona wuxuu u digaa labada cidood. wuxuu dhahaa qofkii lagu qabto asagoo ku dhex dagaalamayo wadooyinka Verona waxaa lagu xukumaa dil, in la dilaa lagu xukumaa. Marka shakhsiyaadka ugu muhiimsan sheekada waxaa lahaa Romeo Montagu. Romeo reer Montagu ka dhashay. Romeo caadiyanba waa nin nabadeed, waa nin arrimaha jaceylka iska xiiseynaya, macnaha dagaalka ma jeclo. Marka bilowga sheekada Romeo wuxuu u sheegay in adeerkiis Benvolio iyo saaxiibkiis Mercutio inuu u jiran yahay jecel dartiisa oo gabar uu jecel yahay, gabadhaasina ay asaga jecleen. Benvolio iyo Mercutio waxay macnaha ku dhiirigelinayaan asaga Romeo inuu iska iloobo gabadhaas oona u raaco xaflad macnaha oo weji maaskar lasoo gashanayo guri Capulet ka dhacayso. way ogyihiin macnaha inay halisteeda badan tahay, laakiin qaraaxada meesha taale iyo waxaas ka weyn macnaha halistaas ay galayaan. Marka Old Capulet wuxuu qabaa hal gabar oo lagu magacaabo Juliet. wuxuu rajaynayaa macnaha Juliet inay ogolaan doonto inay guursato ninkan Count Paris la dhaho. aadoona uu faraxsan yahay inay lamadooda ku qaataan waqti xafladda badartooda loo sameynayo, macnaha inay isku bartaan Count Paris iyo Juliet. Capulet wuxuu doonayaa macnaha inay xafladdan noqoto meel farxadeed sidoo jaceylka ugu fiico, macnaha jaceylka soo ugu fiico. markuu wiilku abtiga uu yahay Tybalt u sheego inay Montagues xafladdan ka soo qayb galeen, Capulet wuxuu ka dalbanaa Tybalt inuu ka leexdo dadkaas xafladda askaaga baashaalaan ka leexo dhaha buuqaad kicinin. ilaan wuxuu rabaa gabadhan Juliet iyo ninkan Count Paris macnaha isku balamiyo oo inay israacaan raba. marka Romeo xafladda soo joogo wuxuu la kulmaa Juliet, isla markiina horyo ka jeclaana aadoona u murugoona inuu maqlo inay tahay ciddiisa cadowgooda gabadhooda inay tahay. Romeo wuxuu go'aansanaa inuu naftiisa halis geliyo. wuxuu usoo dhuumanaa macnaha dariishada qolka ay degneed Juliet si uu ula hadlo. markuu meeshaas oo taagan yahay oo raadinayo wuxuu maqlaa oo dhegeysanaa Juliet hadalkeeda. Romeo wuxuu ogaanaa Juliet inay jeceshahay asagana. waxay ku hadlayaan dariishada, waxayna qorsheynayaan inay macnaha si qarsoodi isku aroosaan. xataa macnaha xataa haddii ay labadooda cid ay cadow yihiin. maalinta xigtay Romeo wuxuu go'aansanaa Romeo iyo Juliet waxay u tagayaan Friar Lawrence. Friar Lawrence waxa waaye nin qisiis ah, waa macnaha culummada oo diintan kirishtaanka kaasoo ogolaanaya lamadooda inuu isku daro, Friar Lawrence wuxuu rajeynaa arooskooda inuu nabad dhex dhigi doono labadan cido isdagaalsan oo isnecban. markii guriga ay u soo laabanayeen, Tybalt ka hor imaanaya Romeo, kaasoo weli ka xanaaqsan inay Montagueska ay soo qayb galeen xafladda Capuletska. Romeo macnaha dagaal iskeen dhaha, barxad iskeen camal oo dhaha seef camal, seef oo dagaalameyna banaanka iskeen. Romeo iska diida inuu la dagaalamo, laakiin saaxiibkiis Mercutio ogolaanayo inuu la dagaalamo Tybalt bedelka Romeo. Romeo wuxuu isku dayaa inuu dagaalka joojiyo si shil ahna oo lama filaan ahna dadka soo kala dhexgala lamadooda. dagaalkii oo bilowday oo soo kala dhexgala, marka waa la gaadaa. saaxiibkiis Mercutio midi la gelinaa. Tybalt wuxuu midi gelinaa Mercutiona wuu dhimanaa. Romeo aaduu u xanaaqa, aadoona u murugoona macnaha inuu saaxiibkiisii dhintay, wuxuuna ogolaanaa inuu la dagaalamo Tybalt. kadibna wuu dilaa Tybalt uu dilaa. Romeo wuxuu dilaa Tybalt.
Benvolio in adeerkiis maaha wuxuu tuugaa macnaha Romeo inuu magaalka iskaga baxsado Verona dhan ka tago hadhow haddii Ameerika oo qabto ninkan waa la dilaa camal saasoo ka cabsanaa oo dil toogasha lagu xukumaa oo dilaa lagu xukumaa Juliet aad u murugaysan tahay inay maqasho in adeerkeedii dhimashadiisa laakiin waxa ugu sii murugo badan inay maqasho inuu ninkeeda Romeo waajib inay tahay inuu ka tago Verona waxaa haysta dhib kale oo ah aabaheeda inuu ku qasbooyo inuu ku daro Count Palace she goes iyadu waxay u tagaysaa Friar Lawrence soo macnaha talo u siiyo Friar Lawrence wuxuu talo ku siinaa wuxuu soo siinaa macnaha Juliet daawo oo u keenayso macnaha inay dhimatay laakiin way hurdoosaa laakiin inay dhimatay loo maleynaa kadib markii qorshaha waxa waaye markii la duugo ay gaaladan dhulka malis gelinaa mugta meel god camal loo qodaa godkaas qolol loo kala sameynaa meedka meesha laga sanduuqyo ku jira hadhow soo macnaha meeda loo maleynaa markii sanduuqaas la geeyo Romeo bashqad inuu u diro oo Romeo imaado sanduuqaas kala baxsado lamadooda macnaha iskala tagaan Verona oo qorshaha ahaa Friar Lawrence laakiin walaxa aad u qaldamaayo Friar Lawrence bashqadii oo diray Romeo ma gaarayso bashqadii ma gaarayso Romeo wuxuu u maleynaa Romeo inay macnaha Juliet ay dhimatay u maleynaa Juliet macnaha saas u maleynaa qaabkaas ay noqonay Juliet waxay fulinaysaa macnaha qaybteeda oo suntii caawi way suuxday laakiin in dhimatay loo maleynaa qorshii magaalka dhan uu ku faafaa laakiin Juliet waa dhimatay alasdaha awheeloogan war ma ogo inay dhimatay oo u maleynaa bashqadii ma soo gaaray ilaa Friar Lawrence inuu qorshaha la socodsiiyo rabi soo u fuli bashqadii ma soo gaaray Romeo ninkan Romeo Verona wuxuu ku soo laabanaa asoo wato sun aad u xoog badan wuxuu aadaa macnaha meeshii Juliet la geeyay macnaha jirkeedii way dhimatay alasdaha laakiin way nooshahay way socodsan tahay meeshii oo tagaa suntii oo cabaa meeshoona ku dhimanaa Romeo markay Juliet soo kacdo waxay arkay macnaha ninkaanu ag yaalo oo suntii cabay oo dhintay macnaha Romeo meesha ku dhintay oo isku dilay ay arkay iyada aadi u murugay macnaha murug darna qabanayso iyadana mididiisa soo baxsanay isgelinay iyadana caloosha iska gelinay midida ama wadnaha iska gelinay isdilay iyadana sheekadan waxa la tragedy mar hadaa maqashid sheeko macnaha dhamaadkeedu aad u murug badan yahay waaye marka hal shay oo fiican ka soo baxay Romeo iyo Juliet sheekadooda ama dhimashadooda markay maqleen labada ciidood Montagueska iyo Capulets-ka waxa ilmahooda ku dhacay waxay go'aansadeen macnaha inay dagaalkii joojiyaan Verona ay nabad noqoto saas macnaha ay ku fikireen intaasoo kusoo koobeynaa haliska diyaariyo waa sheeko aad u qurux badan ma fahanteen laakiin khayaal leh waa ma fahanteen wuxuu qof qoray waa sheeko oo dhab u dhacday maaha mani abaal camal leh waaye laakiin sheeko iska macaan oo nin u alifay oo fadhiistay waaye السلام عليكم